وبركاته كلنتي وعن wanaagsan dhamaanba akhyaarta nadaawanisay waxaan ka xunnahay waqtigan uu dib u dhacnay sabab jira awgeed laakiin waxaan idinka raali gelinayaa inaan idinka soo habsaano mawduucan maanta ka hadli doono mawduucan hore u iclaaminay oo barnaamij u qabanay laakiin ayna suuro gelin aan soo dhigno muuqaaladiisa aan idin soo dhameystirno oo qalabkan ku duubaynay qaarkood ay dhacayaan muuqaaladii ka wada helin marka waxaan jeclaystay inaan topic si toos ah idin la wadaago wixii su'aalaana intiina goobtan ku sugan aad soo gudbisaan hadda intiina hadhow daawataan xaq hoos nagu soo qori doontaan insha Allah idinka jawaabi doono mar dambe aan soo geli doono inta halka ku sugan aan hadda uga jawaabi doono topic-gayga intaanan guda gelin marka hore isbarasho kooban magacaygu waa Yunis Cabdiraxmaan Jaamac waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa kuna koray kuna barbaaray waxbarashadeedii sare iyo hoose dhexe waxaan ku soo qaatay isla magaalada Hargeysa 2015 waxaan dhameeyay dugsigii sare waxaan sidoo kale ka qalin jabiyay 2016 horaantiisii Sidham College qaybta journalism-ka oo dibloma ka qaatay waxa kaleeto oo dibloma kasta luqadda Carabiga waxaan hadda ku jiraa jaamacadda New Generation University College semesterkii lixaad ama sanadkii labaad marka si kale loo dhigo sidoo kale hadda waxaan kamid ahay bahda saxaafadda wali waan ka madax banaanay wax television aan hadda ka shaqeynin laakiin waxaan hore soo shaqeeyay television-ka Star muddo sanad ka soo shaqeynayay oo ka noqday madax barnaamijyada madaxa qaybta musalsalaadka madadaalada kolay topic-gan aan ka hadlayaa waa habka looga gudbo carqaladaha noloshaada ku soo waajaha laakiin inta aanan u tagin habka looga gudbo ama sababaha loo maro ama qaab carqaladaha ku soo waajaha qaabka noqonayaan marka hore waxaan isla eegi doonaa micnaha carqalad iyo caqabad farqiga u dhaxeeya sideedaba carqalad markaanu caqabad ama carqalad u celinaan luqadaha ay ka yimaadeen oo caqabado kale luqad carabi ay ka timi waxa loo yaqaanaa shayga maaragtay saameyn ku yeesha xidibta uu reebo salahan roob haduu du'o roobkani wuxuu keenayaa doog marka sideedaba roob haduu du'o marka sideedaba wuxuu keenayaa roobkani doog marka dooga soo baxaya ayaa la yiraahdaa roobkani wuxuu ka tagay ama xidibtu reebo noqotay inuu doog soo baxo carqaladna waxay noqonaysaa ta ku soo waajahda ee ka hor istaagta shay aad doonaysay inaad hirgeliso oo aad ku shaqeyso ama aad doonayso inaad markii gaadho noloshaada ama carqalad haddaba noloshu sideedaba way carqalad badan tahay dabciguna iyo bilaadankuna isku mid maaha ilaahay laba qofna si uma wada abuurin iyagoo mataana ay hadana kala duwanaan karaan markasta waxa laga baahan yahay hadii aad doonayso inaad guul ka gaadho ama horumar ka gaadho nolosha aad higsanayso iyo mustaqbalka kuu muuqda doonayso inaad horumariso inaad ka jawaabto kuwan soo socda inaad marka hore lahaato dulqaad isla mar ahaantaasina aad lahaato kartida aad kaga gudbi lahayd haddii carqalad ka hor timaado wax shaki la'aan intaad ku guda jirto hayaanka iyo geediga guusha intaad raadinayso ama tubta guusha intaad diidayso inay ka hor imanayaan carqalado fara badan iyo turunturooyin aad u badan si aad markaa uga jawaabto inaad lahaato dulqaad sidoo kaleeto waxa lagaaga baahan yahay inaad suurto geliso oo aad ku tala gasho waxaan ka hor imanaya nooc walba inay noqonayaan guul iyo guul darro ku tala gasho sideedabana noloshu labadaba way wada socdaan haddaad guul daraysato waxa ku fududaanaysa inaad guulaysato haddii aad guulaysatana waxa macquul ah inaad marka labaad guul daraysato laakiin marnaba haddii aad guul daraysato is dhiganin marka carqaladaha ku soo waajahaya waxay noqonayaan dhowr nooc waxa kamid ah mid ka soo waajahda qoyskiina mid ka soo waajahda deegaanka aad ku nooshahay iyo mid ka soo waajahda naftaada qoyskiina marka ku horeeyo salahan haddaad arday tahay aad doonaysid inaad ka wayso himilada waxbarasho iyo ardaynimo waxa dhici kara in ay xaafaddiinu kulliyad kula jeclaato engineering oo kala ama IT oo kala adna aad jeceshahay kulliyad kale oo ama siyaasadda ama saxaafadda ama wixii lamid ah haddaba waxa iska hor imanaya damcaaga iyo damcii xaafaddiina sideedabana noloshaada adiga marka la eego go'aankeeda adiga iskale laakiin haddana waalidka iyo dadkiinu tala soo jeedin bay kugu leeyihiin walow ay dhacdo mararka qaar inay qasab dhacdo oo la isku dayo in lagu qasbo haddana taas iyadoo ku soo waajahda marka hore waxaad isku daydaa intaanad kaga jawaabin xoog iyo adayg iyo hanjabaad iyo wixii lamid ah waxaad isku daydaa marka hore inaad uga jawaabto si fudud ku qancin karto kulliyad inaad adigu xiisayso oo taageerto oo kulliyad inay tahay mid aad jeceshahay adigu laakiin aanad doonin tayo kula jecel yihiin wadii xaftin taas nagu anfacaysa laga yaabo in iyagu arkaan aad ku anfacayso laakiin waxaanad niyad u haynin marnaba ma suurta gelinaysid
sideedaba dee shaygaad jeceshahay iyo shaygaanad jeclan isku mid maaha. marka taasi markay kaaga timaado waxaa isku daya marka inaad ka dhaadhiciso. haddii ay macquul noqon weydo marka go-aanka ugu dambeeyaad ka istaagaysaa wuxuu noqonayaa inaad ka dhabaysa kaaga oo kaxaafadiina dee haddii duca iyo habaar kala dooraynta badan dhacda, laakiin isku day marka hore inaad ku qancisa amaad cid kaashato xaafadiina oo garab ku siisa. tusaale ahaan aniga oo kaleeto markii aan gelayay kulliyadda journalismka waa lii diiday in badan waa laysa ka hor istaagay, laakiin waan ku adkaystay. markii hore waan ka dhaadhiciyay in badan baan isku dayay, laakiin waxaa liigu niya ku yaayay hore uga shaqaynaya waxba ka waayey maxaad kaga xiijinaysaa. marka kadibna wixii intaa ka dambeeyay marka waxaan isku dayay inaan ku qanciyo email suurtoobin, laakiin go-aanka ugu dambeeyay qaatay waxaa inaan ka dhabeeyo. balse waxaa iga hor yimid caqabado ama carqalado fara badan oy ka mid yihiin inaan lay siinin ama aan layga bixinin fiigan wax ku dhiganayay iyo baskaan raacay. laakiin taasi walaal waan kaa qaaday aad baad mahadsan tahay hodan. marka taasi waxay noqonaysay markaa inaan ka jawaabo duruuftaan u baahnaa iyo dabciga aan doonay inaan hirgeliyo. marka waxaan isku dayay inaan ka guul gaadho. fiiga bishii horeysana iska bixiyey, baskaygana maalintaan helana waan heli jiray, wali waanu saaxad halaysiin jirin, maalintaan waayana waan lugeyn jiray. taasi waxay kaliftay markaa inaan 6 bilood aan kusoo dhamaysto inaan u dulqaato u dhabar adaygo, maalintaan helana aan tago, maalintaan waayana ama aan lugeeyo, haddii aanan lugeynina aan ku tago maaragtay ama aan iska joogo. sidoo kaleeto wax badan baan ka faa'iiday markii ay taasi iga hortimido. waxaan ka faa'iiday inaan noqon karo qof keligii maaragtay meeshuu baahda tigi kara intaan la qabsaday. oo tusaale ahaan marka hore waxaan israaci jirnay qof inankaan israacayna marka waxay ugu waajibeen inaan baskiisa kafaala qaado maadaama aan raacayo. basku marka 2015 1500 buu ahaa, marka hore 3000 marka dambe 3000 ay qasab noqonaysa maalin kasta helo amiga iyo yeeladaan doonayaan inaan ka dhabeeyo ama aan higsanay. markaad isku day marka inaad ku qanciso ay suurtoob weydo waxaad isku dayaysaa marka inaad go-aanka ugu dambeeya gaadho oo ah duruuf kasta oo maada ama waqti kasta oo jira iyo wadci kasta oo kugu xeeran inaad isku day inaad ka gudubto ood go-aan gaadho ah inaad samayso isla mar ahaantaas inaad ku tala gasho inaad guul ka gaadho arrinta doonaysa oo ay dhacdo go-aanka ugu dambeeya aad tiraahdo waan gaadhayaa waanan ka dhabaynayaa wixii dhacaba ha dhicin, laakiin anigu waan ku rajo weyna waanan ku tala jiraa inaan go-aankayga ka dhabeeyo oon gaadho guushaan doonayo. waxaa markaa